bismillaahi raxmaani raxiim arday isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qaybteeni saddexaad iyo casharkeeni saddexaad aad kusoo dhawaaneysaan waxaan u sameynaynaa wax yaro definition ah maxaa la yihahdaa breastfeeding iyo complementary feeding maxaa la yihahdaa waxaan leenahay breastfeedingka waxa weeyaan is the feeding waa nuujinta ama quudinta in event or ama young child with iyadoo la siinaayo breast milk caanaha naaska kaligiis si toos ama directly loo siinaa from xagee ka imaanaysaa marka female human breast ka imaanaysaa ama naasaha female ka imaanaysaa ama waxaa loo yaqaanaa via lactation loo yaqaano not from baby bottle lama siinayo cunugii musaasad ama caana weel kale ku jiro lama siinayo haddii ahaan lahaayeen complementary feeding maxaa la yihahdaa iyadana waxaan leenahay ama weedinka waa hab taasoo waxaa leeyahay marka ama waa process of giving an event other foods and liquid along with breast milk after the age of 6 months waxaa leeyahay marka complementary-gana waa hab kaasoo cunugii loogu daray cunooyin kalenta ama biyo ama caano waxay noqotaba oo naaska ka baxsan da'da markuu gaaro 6 bilood markuu gaaro ayadoona leeyahay marka sidaas daraadeed marka waxaa leeyahay marka breast milk-gii kaligiis no longer laguma sii wadi karo kuma dheeraan karo maxay tahay marka sufficient waa kuma filna marka waxaa loo baahan yahay marka inuu la kulmo ama uu helo waxa loo yaqaano nafaqa to meet the nutritional requirements of growth waxaa loo baahan yahay inuu helo waxyaabo kale oo nafaqooyin oo dheeraad ah si uu u helo maxaa marka cunugii koritaan ama grow baby si uu u helo waxaa leeyahay marka ama waa hab taasoo waxaa taasoo maxaa marka cunugii uu ku noqonaa ama ku quudanaa maxay tahay cunooyinka ay quutaan dadka qaangaarka ah ay quutaan inta badan ayaa waxaa la yidhahdaa labadaas saasaan usoo barbardhigaynaa marka ama labadaas barbardhigooda waxaan ku sameynaynaa